daawud bal soo dhawow magacaaga iyo meesha aad joogtaan muuqaal waxaanu ku aragnay facebooka haweeney xaamilo ah oo biyo la dhaxmarinayo bal arimahaasi faahfaahin naga sii haweeneydaasi maxaad isku tihiin sidayna wax u dhaceen markuu horeysa waxaan ku dhahay magacayga waxa la Daawud Maxamed Cabdi hagaag oo joogo Kutulo sax gabadha dumaashiday waa sax marka dan yarkaasi iyo gabadha waxay foolatay xalimaan haween horo sax marka hadii haween horo sala subaxi waxaan geeyay mistalka sax marka ilaa ay waxaan jirnay 6 saac iyo 45 daqiiqo meelahaas intaas markaan sugayni waan dhalay doontaan leeyni maxaad sugayseen mayo idan sugayni aan waa dhalay doontaan isleeyni sax taqriin waxay waqti nasiin den after sometimes we're in then hours for I then gabadhan xaaldeed waxa waa ina complicated way hagaag marka waa in ambulance wacna sax marka ambulance tan suuqa marka afkadaad wajeer far loo soo loo qaado sax waan sugni it was 12:45 sax marka waan sugni ilaa ay 10 saac oo galabtan sugni sax nimankii ka hortay ninka dhakhtarka oo joogo si ma soo diray waan soo bixinaynay sax marka yarka waxaan waa ambulance crew sax waan soo bixinaynay marka muddo Allah waxaan sugeynay 6 saac 45 daqiiqo ilaa 10 saac sax marka waxba soo soconaan awaani sax gabadhan xaaladda maartay critical condition ay tahay hagaag marka aniga iyo wiil kale oo maarta qaraabada iyo wiil aan ilmaadeernaana ya tagni special forces oo tagni waday oo gaari kale ma jir magaalada hagaag special forces oo tagni sida ma haystaan u sheegni sax ويانا السعودية قال لهم كرسي المساعدين ماشي عن تقني إن بتين كتلو وجيه عن كتلو منديرة مركب حجر جايزة لك هجاج مركب جاري ماشي الاستاذ ماشي جاري ومروي صح مركب جبده عليك نفس كيد وحجرب كيانا جاي جبت طوال قبلني كربها قبلني حال بدن الحين لكن ينقو سينو بيا والله وين كروس جاري مركب هجاج مركب جاري بكل حاجة نوسوجي صح marka waxaan weynaa distance of 1 kilometer qofkana uu yahay qof xaamilo oo ilmihii ay ka imanayaan ilmihii ka imanayaan oo yaana xaaldiisa baas yaani adaas mareyn karin صح distance of 1 kilometer aan weynay gaari probox ama imaadi isbitaal kan geeyni oo ku talo Mandera xaga isbitaalka Mandera ayaad geyseen ku talo Mandera hagaag marka waxaan dheen marka gabadhan waxay u baahan tahay xaaladdeeda waxay u baahan tahay maartay inay referral loo qaado xilwa hagaag sidoo kale referral waraqay ay u buuxiyeen marka waan qaadnay صح ali ama saddex saac meelaha aan tagnay xilwa صح marka anaka gudaha sima gelin gabadhii gudaha dhakhtarinta la gelin alxamdulillah gabadhii waa la qalay صح ana gelin banaanka alxamdulillah nabad isku imaaday idan hadda way saacantahay ka waran marka hooyada iyo cuniga ee dhibaatadaas hooyada martay ee saacad dhan lugaysay biyaha aragtaa la marteen ceelooq markii la geeyay qaliinka lagu sameeyay iyada iyo cunigeeda sayeen hadda xaalkooda alxamdulillah waa degay xaalkooda hadda way fiican ka waran marka maxaad kala kulanteen maamulka isbitaalka Kutulo Mandera ilaa iyo ceelooq sidee idin ku soo dhaweeyeen sidee idin daaweeyeen sidee idin qaabileen marka حالك نمد حاجة نوصل دوين وحال بانل دعني تذكر سيد زايد والشرف أي نوصل دوين تذكر وتد والأحسن محيي أنا كنت لو مندير حتى ممكن تجني وإحنا مدينة الجوي دكتورين تقول كده تد أكسيدنت ما رتجلي كم شغل سنين وينوي ما دين حتى أنا نوري يري ما مدة سفر marka waran waa sidee dareenkiina marka maamulkii county-ga oo idinkaado simaanayseen wajeer isbitaalkiina magaalada Kutulo oo markaasi aad ka weyseen ambulance wasaaradda caafimaadka county-ga wajeer oo aad la soo hadasheen isbitaalka magaalada wajeer oo la soo hadlay oo ambulance ka weyseen idinkoo ka tirsan county-ga wajeer in Mandera county kale ama deegaan kale oo daris idin la ah la idinka daaweeyo la idinkaga soo gurmado la idinka caawiyo sidee u aragtaan idinkaas arinkaas neeyo horta marka ugu horeysa dhacdo tan ugu horeysa hagaag
last week waxaa dhacday maamo kale meel oo kilo distance for just 30 kilometer inay maamo ku geeriyooto sababta maxay ahayd sababtan waxay ahayd maaragtay inay gaari la weeyay صح for almost 2 nights ay fulinaysa صح yada day ay dhimatay صح marka anaka meeshan markaan aragnay wiil kalena oo shalay inas diabetes u dhintay diabetes kana ay keentay sokortida kor u kacday gaari lagu qaaday la way gaarigii waqtigii la darilay awaas simaaday then as dhiiqis si galay yarka waa ismagan by the time service gaaray ba asgoy صح arrinkaas waan ka qeyroni maaragtay anaka haddaan sin county jarhan u naani in county Mandera they are totally different so as gartana hagaag markaan wadda hadda ma garanayo gaafanaga oo wajeer rajo weyn baan ka leeyahay waxaan leeyahay dhanka caafimaadka bar waa isbedeli doonaa markii mid soo gala maamulka maaragtay oo dhanka caafimaadka yani ninka uu ku facayo isleeyay maamada ma rifaadi leeyso mideeda kale tan jidka oo gooy oo geerash in ay soo mari karin bal waa laga shaqeyn doonaa leen marka dawladda waxa hadda ku umaan last week ay dhacday maxaa codsanaysaan marka maadaama oo markii lawaad ay ku siganayso haweenay in ay markaasi iyada iyo cunugeeduba ay umul raacaan maxaa codsanaysaan county-ga government ama wasaaradda caafimaadka dawladda Wajeer maxaad ka codsanaysaan maadaama caafimaadka ay dawladda hoos tagto county government waxaan ka codsanaynaa maaragtay inay maaragtay ambulance standby noo keento soo gartama hagaag maamada tanglina maahan line ay ku jiraan each and every day saan kala noqdaan